habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kaliya xiisad dheeraad ah ayaa ka taagan gacanka iyadoo oo markab dagaal oo British ah uu digniin siiyay 3 doomood oo hubaysnaa oo Iran ay leedahay wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga haynaa gobolkaasi qodobada kale caawan waxa kamid ah shirka caalamiga ee xorriyadda saxaafadda ee London wakiilada ka kala socday dawladaha caalamka ayaa saxiixay ballanqaad ah in ay ka wada shaqeynayaan sidii loo difaaci lahaa xorriyadda saxaafadda rubac dhamaadka ciyaaraha qaramada Afrika ayaa maalintii labaad galay ciyaar iminka socotana Ivory Coast ayaa waxa lagu hogaaminayaa hal gool waxa hogaaminaysa kooxda Algeria wararkii ugu dambeeyay ayaanu si toos ah idinkaga soo tabinaynaa magaalada Qaahira barnaamijkana doodda caawan waxaanu ku eegi doonaa waa maxay xorriyadda hadalka maxay uga dhigan tahay Soomaalida kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka afayeenka ra'iisul wasaaraha Britain ayaa ku baaqay in xaaladda gacanka la dejiyo kadib markii doomo ay leeyihiin Iran oo hubaysnaa ay isku dayeen in ay wadada ka xiraan marka Britain ay leedahay oo sidii saliid oo marayay marinka Hormuz oo halkan aad uga jeedaan qaridada gacanka Persia waa marin aad muhiim u ah waxaana gacankaasi uu markaasi muhiim ugu yahay saliidda iyo shidaalka dunida shilkuna waxa uu ka dhacay Abu Musa oo ah jasiirad lagu muransan yahay oo Iran ay sheegato wasaaradda difaaca waxa ay sheegtay in Iran ay isku dayday in markabku uu leexdo oo dhinaca biyaha Iran ay u leexiyaan laakiin waxa caawiyay markab ciidamada badda oo Britain ay leedahay waana kuwan markii muuqaalada laga qaaday markabkaasi u gurmaday ee ciidamada Britain ay leeyihiin oo la yiraahdo HMS Melrose waxa uu dhex galay markabka shidaalka siday iyo doomaha Iran ee markaasi ay u soo socdeen oo markii dambana markabka la sheegay in ay ka leexdeen markii digniin la siiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay in shilkan uu ka soo horjeedo qanuunka caalamiga waxaana uu yiri runtii waa dhacdooyin warwar leh dhinaca kale aad ayaanu ugu haweynay ciidamada boqortooyada ee badda iyo mas-uuliyadda ay ka qaataan ilaalinta hantida iyo maraakiibta Britain si degan ayaanu xaaladda ula soconnaa ciidamada kacaanka ee jamhuuriyadda Iran waa ay dafireen in shilkani ay ku lug lahaayeen wakaaladda wararka ee waddankaasi Irna ayaana warkan waxay ka soo xigatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo ay ku sheegayaan wasiirka Maxamed Javad Zarif oo leh warkani sal iyo raad toona ma laha waxaana ay tahay wiiri arrin la doonayo in xaalad gobolka looga abuuro baryahan xiisad ayaaba ka aloosnayd gobolkaasi toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ciidamada badda ee Britain ayaa markab saliid sida oo Iran ay leedahay waxa ay ka qabteen meel ka baxsan xeebta Gibraltar madaxweynaha Iran ayaana hadalkan yiri isagoo caraysan isyaa migam shuma aagazgar naamni hastid Britain amni darrada adinka bilaabaya dib ayaad ka ogaan doontaan cawaaqibka hadda rajabeel baa tihiin marka mid ka mid ah maraakiibtiina shidaalka uu gobolku marayo waa inaad ku ilaalisaan kuwa dagaalka sababtoo ah waad baqaysaan arrintan waxay imanaysaa maalin kadib markii Mareykanku ku dhawaaqay in gobolkaasi gacanka uu geynayo ciidamo badda oo caalami ah oo ilaalinaya maraakiibta halkaasi maraysa haddaba waa kan wariyaha BBC-da Paul Adams oo sharaxaya arrinta runtii Mareykanka ayaa hadalka samaynta howlgallo lagu ilaalinayo maraakiibta maraya gacanka bilaabay waxay sheegeen inay ilaalin guud iyo inay xagga dambe ka taageeri doonaan howlgalkan ma kaxayn doonaan ay yidhaahdeen iyaga oo ilaalinaya maraakiibta dalalka kale leeyihiin dalal howlgalaha ayay raadinayeen welise kuma ay guulaysan oo ciidamo ay soo jawaabin waxaa inoo muuqda dhinaca Britain in si tartiib ah dhinacaas loogu leexiyey maanta waxaa xiisalay in wasaaradda difaaca Britain ay sheegtay inay dusha ka ilaalin doonto maraakiibtooda oo aanay barbar geli doonin ma doonayso in loo arko imika inay howlgalka Mareykanka qayb ka yihiin markana London shirka caalamiga ee xorriyadda saxaafadda oo magaalada tan London ka socday labadii maalmood ee ugu dambeeyay ayaa wakiilada ka kala socday dawladaha caalamka waxa ay saxiixeen ballanqaad ah in ay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo difaaci lahaa xorriyadda saxaafadda wariyahayaga Cabdiraxmaan Bidaan oo shirka ka qayb galay ayaa warkan nooga soo diray
waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada London shirweyne socday 2 cisho oo loogu magac daray shirweynaha difaaca xorriyatul qowlka ama saxaafadda. shirweynaha waxaa qabanqaabiyay dawladaha Canada iyo Ingiriiska waxaana looga gol lahaa in lagu soo bandhigo sida loo difaaci karayo saxaafadda caalamka oo baryahan la sheegay in saxafiyiinta dhibaatooyin la soo kulantay sida gidaarkan oo kala ku arkaysan magacyo badan baa ku dhagan halkan oo magacyadaasina ay sheegayaan saxafiyiinta caalamka oo dhan lagu dilay sidaynu ognahayna saxaafaddu waxa haysta dhibaatooyin badan meelo badan oo caalamka ah maanta shirweynaha oo dhan waxa lagaga hadlay arrimaha Afrika iyo saxaafadda gaar ahaan saxafiyiinta dhibta haysata iyo dhibaatooyinka kale iyaguna cusub ee saxaafadda cusub la soo baxay oo ay ka mid yihiin baraha bulshadu sidii aynu sheegnay iyaduna waxaa jirta in saxaafadda iyo baraha bulshadu imka isla falgaleen saxaafadda Soomaalida iyo dadweynaha Soomaalida waxa haysta iyaduna dhibaatada ah in barihii bulshada si khaldan loo isticmaalayo oo fake news-ka waxa la yiraahdaa uu batay iyo dadka iyaguna waxyaabo aan u qalmin dhaqanka ama diinta ama waxyaabo kale ay dadku leeyihiin way soo dhigayaan baraha bulshada. Cabdiraxmaan Bidhaan ayuu ahaa bal markana qodobada kale ee wararka caawa ku jira. Shiinaha ayaa si carale uga jawaabay warqad wada jir ah oo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay ku cambaaraynayeen sida ay ula dhaqmaan muslimiinta Uyghurska. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ku tilmaantay eedeymahaasi kuwa been abuur oo waxba ka jirin waxaana ay ku eedeysay kuwa saxiixay inay siyaasadeynayaan xuquuqda aadamiga. in ka badan 20 dal oo ku booriyay Shiinaha ayaa jira oo inay u ogolaadaan kormeerayaal caalami ah oo madax bannaan inay tagaan gobolka Xinjiang. daraasad ballaaran oo Faransiiska lagu sameeyay ayaa lagu sheegay in ay sareyso khatarta kansarka ugu jiraan dadka badsada cabitaanada sonkorta badan ay ku jirto iyo waliba casiirka. cilmi baarista oo socotay 5 sano ayaa waxa ka qayb galay 100,000 oo qof waxa la sheegay in cabitaanka 2 qasac maalintii uu kor u qaadi karo khatarta kansarka 8%, laakiin dhaqaatiirta ayaa ka digay in loo baahan yahay macluumaad dheeraad ah. qiimeyn lagu sameeyay cimilada sii kululaanaysa ee dunida ayaa lagu ogaaday in 5 meelood hal magaalooyinka caalamka oo dhan inay wajihi doonaan cimilo aan horey loo arag 200 marka la gaaro 2050ka. magaalooyinka kulul sida Singapore iyo Jakarta ayaa la saadaalinayaa in ay ka dhici doonto kuleel daran iyo waliba qallayl halka magaalooyinka dunidana ay sii kululaan doonaan. saynisahanada arrinta sameeyay waxa ay joogaan Switzerland. koobka qaramada Afrika ayaa ka socda magaalada Qaahiro oo si xiiso leh u socda. Maxamed Cabdi Xaraare ayaana si toos ah maalmahan baan nooga soo waramayay oo hadda qadka ku jira. Maxamed, maxaa ugu dambeeyay? farxan waa mahadsan tahay warbixintaada ugu dambeysay ka hadlaysa kuleelka inaan Qaahiro lagu soo dalin waa arrin la yaab leh. maanta 45 ayuu kuleelka Qaahiro gaaray. ayeeshee farxaanow maalintii labaad ayuu galay rubac dhamaadka ciyaaraha qaramada Afrika ee halkan ka socda. xalay waxa ay seeftu qaaday Benin iyo South Africa waxa semifinalka u gudbay Senegal iyo Nigeria. caawana waxa la ciyaarayaa laba ciyaarta koobaad oo hadda iminkaba socoto waxa wada ciyaaraya Algeria iyo Ivory Coast. Algeria ayaa gool ku hogaaminaysa. ciyaarta sida la sheegay waa ciyaarta ugu adag ciyaaraha la ciyaarayo rubac dhamaadka ciyaarahan qaramada Afrika. ciyaarta caawa soo galaysa farxan oo indhaha lagu wada hayo waa ciyaarta dhexmari doonta Tunisia ee Madagascar ayaa soo jiidatay dad badan oo ciyaaraha taageera ama daawada ee magaalada Qaahiro iyo magaalooyin kaleba ku sugan. farxaanow ka xulkan Madagascar waa markii ugu horeysay ay yimaadaan ciyaaraha qaramada Afrika. hayeeshee ma aha xul la dhayalsan karo. warbixin kooban ayaan ka diyaariyay bal inta aanan ciyaarin warbixintaas farxan waxa xusid mudan haddii ay caawa badiyaan in ay la kulmi doonaan kooxda Senegal oo iyadu kamid ah kooxaha loo saadaalinayo inay koobkan qaadaan. warbixinta farxan aan wada daawano. ugu horeyntii waxa ay kaalinta koobaad uga soo gudbeen qaybta ama groupka B oo ay kamid ahaayeen kadibna isreebka 16ka. iminka waxa ay ku jiraan 8 koox ee ugu dambaysa kadib markii ay si taariikhi ah Congo soo jireen. kooxda Bariis ee Madagascar waxa ay soo jiidatay hadalhaynta ugu weyn ee koobka qaramada Afrika. waan ku faraxsanahay waxa aan gaarnay wax badan aan ku sheego ma hayo hadda waxaan haystaa daqiiqadahaas yar oo aan dalkeenna ku dareensiiyo farxad. waan ogahay inay ku adag tahay waddankii waan ogahay inay muhiim u tahay inay helaan iftiinkan yar oo rajada iyo farxadda ah waana kan ugu fiican. damaashaadka ciyaaryahanadu waxa ay noqotay calaamadda iyo aqoonsiga dalka.
la célébration ma geesaha markaan goolka dhaliyay ayaan sidaas sameeyey waa zebo oo xayawaan ku nool madagaskar xayawaankani waxaanu ku haysanaa mada markaas waxaanu ku tashanay marka mid naga mid ahiba uu gool dhaliyo inaannu sidaas samayno si aanu ugu dabaaldegno dalkayaga ka hor intaanay iman koobkan kooxda Bariis waxa ay turanturooyin tiro badan kala soo kulantay safarro ciyaaro caalami ah. À 4h du matin, je me rappelais très bien 4h du matin. waxaan xusuustaa aniga oo kacay 4tii aroornimo waxaannu jiifnay garoonka dhexdiisa waxaannu maqalnay buuq iyo dad qaylinaya waan kacay markaas ayaan arkay kooxdii Cameroon oo lugaynaya airportka dhexdiisa ciyaaryahanadii ugu waaweynaa Samuel Eto'o, Rigobert Song iyo Boma ayaa ku jiray dhammaantood waxaannu isla jiifnay garoonka dhexdiisa innagu waxaannu xirnayn dharkii Madagaskar madaxayga kama baxdo maalinta maalin ceeb ayay ii ahayd laakiin safarada caalamiga oo dhan ayaa sida Et nous, on était par terre, on dormait comme ça, on regardait comme ça. koobkan qaramada Afrika ka hor waxa ay kubadda adduunka kaga jireen kaalinta 108aad xulka Madagaskar iminka waxa uu dunida u xaqiijiyey inaanan la dhayalsan karin présente le logo marka ay soo bandhigaan astaanta waa Afrika Madagaskar kuma jirto waxaa laga yaabaa inay tahay qalad bani aadam balse waxay muujinaysaa halka aan taagannahay waxaan rajaynayaa afkoon inaysan noqon waqti yar oo ay jiilka mustaqbalka ka faa'iidaystaan dhammaantan ugu dambayn waxaan ka qayb galaynaa afkoon waxaan rajaynayaa in carruurteenna noqdaan kuwa ka faa'idi doono waxaan rajaynayaa inay tani sii soconayso shaqo badan ayaa la qabtay wax badan waa dhiman yihiin waxaan rajaynayaa inay halkaa dadka ka sii wadaan oo ay sii dhisaan caawa ayay xulka Tunisia kula ciyaarayaan garoonka Al-Salaam ee magaaladan Qaahira waxaannu eegi doonnaa geediga mashxaraddu weheliso ee Madagaskar halka uu cagta dhigo maxamed xaraare BBC Qaahira maasanid axmed oo ka soo warramayay magaalada Qaahira weli waxaa soo socda oo qaybtana barnaamijkaanu ku eegi doonaa dooda caawa oo ku saabsan waa maxay xorriyadda hadalka maxayse uga dhigan tahay Soomaalida wax yar kadib 2 daqiiqo kadib ayaan isku soo laaban doonaa soo dhawaada wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn xiisad dheeraad ayaa ka taagan gacanka iyada oo markab dagaal oo British ah uu digniin siiyay 3 doomood oo hubaysan oo Iiraan ay leedahay shirkii caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ee London oo la soo gabagabeeyay maanta ayaa wakiilada ka socday dawladaha caalamku waxay saxiixeen ballanqaad ah in ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo difaaci lahaa xorriyadda warbaahinta qaramada midoobe waxay u aqoonsatay xorriyadda hadalka inay tahay xaq uu leeyahay bini aadamka sanadkii 1948 iyadoo oo ku boorisa qaramada adduunka oo dhan in ay ilaaliyaan haddaba shirweynahaasi xorriyadda saxaafadda oo 2 maalmood socday ee maanta lagu soo gabagabeeyay London ayaa hay'adda Reporters Without Borders waxa ay ku waramaysaa in nacaybka loo qabo warfidyanada uu markaasi isbedelay dhibaato weyn iyo jirdilna loo geysto wariyaasha haddaba su'aashu waxay tahay waa maxay xorriyadda hadalka maxayse uga dhigan tahay Soomaalida barnaamijka caawa ayaanu uga doodaynaa waxa stuudiyaha ila jooga oo igala qayb galaya Cabduqaadir Maxamed Cashir Nadaara oo ah wariye rugcada oo wadankana ka soo shaqeeya haddana London ka hawlgala dhinaca magaalada Hargeysa waxa qadka uga jira Khalid Ismaaciil Fodari oo ah tafatiraha telefishinka Goobjoog ee Somaliland iyo stuudiyaha iyaga magaalada Nairobi oo iyana qadka uga jirta Farxiye Maxamed Khayre oo ah madaxa ururka dumarka ee suxufiyiinta Soomaaliyeed saddexdiinaba soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa Farxiya oo stuudiyaha iyaga Nairobi joogta Farxiya horta waa maxay xorriyatul qowl marka la leeyahay xorriyadda hadalka maxay tahay
waa mahadsan tahay in ka hadalka xorriyadda hadalka marka la yiraahdo waa inuu qofka fikirkiisa uu si xur ah uu usoo gudbin karaa asoonan la caburinaynin dabcan fikradaha la soo gudbinayana way kala duwan yihiin ma ahan micnaheedu qofkani in uu fikirkaagu u taageersan yahay ama dhinaca kaleba laakiin waa inuu helaa meel uu kusoo bandhigi karo si xur ah fikirkiisa qofka waan gartaa waa mahadsan tahay farxi waad qeexday nadaar adiga ku weydiinayaa si kooban qeex waa maxay xorriyadda hadalka xorriyadda hadalka in badan oo kamid ah Soomaalida waxay u haystaan wariyaasha kaliya laakiin xorriyadda hadalka waxa ku jira fanaaniinta waxa ku jira abwaanada qof walba oo aragtidiisa si nabadgelyo ku cabira oo ka hadla waxyaabaha markaas taagan hadii ay tahay dhaleecaynta dawladda iyo waxa ay qabanayso iyo horumarka iyo dhibaatooyinka marka xorriyadda hadalku marka way macno ballaaran tahay waxa loola jeeda oo inta badan diiradda loo saaro wariyaashan waxay tahay iyaga ugu badan oo idaacadii iyo TV-gii bay baahinayaan bal su'aasha islaan weydiiyo Khalid Ismaaciil Foraari oo Hargeysa qadka uga jira Khalid walaal waad mahadsan tahay in xorriyadda hadalka si kooban haddii aan u sheego waa tan hadda aanu ku doodaynay inagu oo aanu doonayno in aanu mowduuc muhiim ah oo Soomaalida oo dhan ay danaynayso aynu kaga wada hadalno marka si kooban xorriyadda hadalka waxa weeye in qofku uu cabiri karo aragtida uu doonayo in ay gaadho dadka kale waan gartay haddii adiga aad ku sii socoto Khalidow wadankaad joogtaa waad ka hawlgashaa wariye ka shaqeeya tahay Hargeysa laakiin mararka qaar dadku waxay isleeyihiin mas'uuliyad baa la imanaysa xorriyaddii hadalka wariyaashu suurtagal ma tahay inta badan inay xadkii ka tallaabaan oo ay si kale u isticmaalaan wariyaasha kulley iyaga oo ay jiraan duruufo badan oo haysta oo la oran karo duruufta ayaa keentay in ay ka tallaabaan waxyaabaha ay tahay in ay ka taxadaraan haddana labada dhinac xukuumadaha hadday tahay iyo warbaahintuba labadooduba qaladaad bay leeyihiin marka warbaahinta malihi ma khaldamaan hase ahaatee qaladkoogu wuxuu ku salaysan yahay wax ay keentay guud ahaan burburkii deegaanada Soomaalida ka dhacay waan gartay marka waxaad leedahay khaladku warbaahintana way leedahay maamulada jirna way leeyihiin aan soo galiyo farxiya maamulada jira intooda badan mid walba waxa ugu qoran dastuurkiisa ama shuruucda u yaala in saxaafadu ay xor tahay ma is leedahay way ku dhaqmaan ma aaminsani kumana dhaqmaan sida dhowr mar oo kala duwanba ay dhacdaba marka laga hadlayo xorriyadda hadalka ama kan miidiyaha warbaahintaba inta badaniba caqabadaha waxyaabaha ay ugala kulmaan maamulada waxaa kamid ah iyadoo xorriyaddii hadalka ama ka hadalka xaaladda jirta meelo ku haboonna kusoo gudbinaynin ayaguna loo arkayo mararka qaar ama inta badanba inay cadow ku yihiin ama ay dhibaato ay ku hayaan dhinacyadaasi kala duwan ama maamulka ha noqdo ama dowladda ha noqdo ama dhan kasta oo maxaa kamid ah adigu hadda gabdhaha suxufiyiinta aad ururkooda madax u tahay maxaa kamid ah dhibaatooyinka maamuladu ay ku hayaan warbaahinta tusaale horta maanta aan isweydiino ma jirtaa in wariyaha gobol kasta uu dalka uu ka joogo waxa ka taagan gobolka ama xaaladda jirto si xurnimo ah ama si tafaftiran uu usoo gudbin karo sababtoo ah dadka qaar waxa ay target gareystaan warbaahinta Soomaaliya iyagoo u arkaya in ay cadow ku yihiin hanaanka dowladnimada ama hanaanka maamulkaba looma wada bislo dhammaan haday noqon lahayd bulsho iyo haday noqon lahayd xitaa miidiyaha qudheedii uma bislo micnaha hadii xuriyad loo siiyo wariyaha ma ahan wax kasta uu rabo in uu sheegi karo waan aragnaa marka xuriyatul qowlka iyo laga hadlayo sida wariyaasha qaarkoodba ay wax u sameeyaan marka qaar waxa la dhihi karaa wariyaasha qudhoodu xitaa dhibaatada ay la kulmaan oo ay kamid tahay dilalka dhaawacyada iyo xariga ayaga ayaa sabab u noqonaya sababtoo ah maadaama ay ku nool yihiin wadan dhibaataysan ku dhawaad 30 sano oo aan haddana xuriyatul qowl badani aysan ka jirin meelahaasna ay kamid tahay meelaha ay ka wajihi karaan warbaahinta Soomaaliya dhibaatooyinka ayagoo raba in ay hadalkiisa ama waxyaabaha farxi waan gartay waan ku siinayaa waqtiga soo galiyo Cabdiqaadir Nadaara farxi waxay leedahay bisal ma jiro ma la qabtaa waa tahay farxi in badan waa la qabaa laakiin meelaha kaga duwanahay sida ay u dhigtay oo kale in Soomaaliya oo dhan wariyaashu aysan cabiri karin aragtiyadooda ama dadka wariyaha kaliya ma ahan majaajilistayaasha meelo badan way dhici kartaa laakiin meelaha qaar waxaan aaminsanahay inay aad u wanaagsan tahay hadda magaalada Muqdisho oo kale oo mar dhow aan tagay
waxaad arkaysaa idaacadaha inay sameeyaan majaajilaystayaal ama ay sameeyaan muxuu ahaa ruwaayado madaxdii gudoomiyihii baarlamaanka madaxweynihii ra'iisul wasaarihii gudoomiyihii maxkamadda wax looga sheegayo oo waxyaabaha qaladaadka lagu iftiimayo dadkuna aad bay u jecel yihiin runtii marka meelaha qaar soo kale kama jawaabaan baad leedahay dadku waxay rabaan way dhihi karaan dadku waxay dhihi karaan saas ay tahay muqdisho dad baa lagu dilaa wariyaal baa lagu laayay marka hadda sidii hore maaha inta badan wariyaashu waxa taargetgadeeyay oo dili jiray waxay ahaayeen qolooyinkan argagixisada laakiin waxa moodaa hadda dadkii inay iyagu la qabsadeen xuriyatul qowlki waliba mid kaliya maaha idaacadaha telefishinada harkisa nin koofiyad soo gashanayo iska dhigayo gudoomiyihii baarlamaanka madaxweynihii marka oo si u hadlayo marka meelaha qaar waa laga yaabaa Soomaaliya in aysan waxyaabahaas ka dhici karin waan gartay Khalid Ismaaciil aan soo galiyay Khalid Hargeysa joogta Somaliland ayadu xaalkeeda uu ka duwan yahay leeyahay hadda toddobaadkan ugu dambeysay wariye Oldomba 3 sano iyo dheeraad la xukumay hadal uu yiri marka xaaladdu waa sidee Somaliland sida aad idinkuba sheegteen iyo deegaanada kale ee nabadda ahba lama mid aha Muqdisho iyo Soomaaliyada kale waxaanan qabaa in ay ka wanaagsan yihiin dhinaca xorriyadda warbaahinta iyo xorriyadda hadalkaba xarig markay noqoto waxa la xusay Muqdisho warbaahinta iyo dadka kale ee fikirka cabiraba in la dilo laakiin halkan waxa ugu weeye xariga mana difaacayo in warbaahinta la xira ay tahay wax sax ah waanu ka soo horjeednaa in warbaahinta iyaga oo gudanayay tacadiyo xarigu kamid yahay loo geysto hase ahaatee waxaa muuqanaysa in guud ahaan deegaanadii Soomaalidu ay meel waliba ay imanayso caburin laakiin halkan mushkiladda ka jirta kaliya waxay tahay in warbaahinta xarig loo geysto taasina waxaanu u fahansanahay in ay tahay dhibaatooyinka guud ahaanba deegaanada Soomaalida ka jira laakiin Somaliland way ugu wanaagsan tahay baan qabaa haba la xidhay haba la xiro waxa tiri way u wanaagsan tahay laakiin saas ay tahay idaacado madax banaan oo Hargeysa ka furan ma jiraan waa sharci iyo maaragtay arrin u baahan in la weydiiyo dawladda sababta idaacadaha iyo warbaahinta loo furi waayay waxaanan u malaynayaa sida in badan dawladdu ay ku celcelisay sidan xal u aragtay laakiin waa arrin sharci yaqaanada iyo dadka maaragtay sharci dejinta u ah Somaliland ay ka doodayaan ma ku qanacsantiin laakiin adigu warbaahintaad ka mid tahay wariyaashiina Hargeysa jooga ma ku qanacsantiin anagu mar walba waxaan jecel lahay meediyaha qaybaha kala duwan in laga helo dalka iyo Somaliland waxaanu rajaynaynaa waqti dhow in la helo idaacado badan sida wargeysaduba waayo xamar idaacadaha ku badan laakiin wargeys kuma arag waqtiyo kala duwan oo waxay taasi muujinaysaa deegaan kastaba in qaybaha kala duwan ee warbaahintu uu midka kale ku wanaagsan yahay Khalid aad baad mahadsantahay farxiya waxaad haday carababtay inaan aysan bisayl jirin marka qaar waxa dhacday warbaahintan sida gaarka loo leeyahay in lagu eedeeyo inay ganacsi ay yihiin oo lacag ay soo qaataan wariyaashi marka qaarkood si madax banaan aysan warkii u sheegi karin taasoo ma jirto way jirtaa dhaliilahaasi iyo kuwa kale oo aad u badan oo warbaahinta madaxa banaan loo jeedinayo in tusaale wariyahaasna hadii uu maanta u baahdo ama wax un dhaqaale ku soo qaatay dhinac kamid ah dhinacyada ishaya ama arin uu rabo dhexdhexaad inuu ka noqdo in kama noqon karo sababtoo ah waxa sugaya waxaasi iyo dhinaca uu wax ka soo qaatay warkiisi inuu buunbuuniyo tusaale hada bulsho badan oo Soomaaliyeed aad bay uga niyajabeen warbaahinta Soomaaliya xitaa in dadkii badanaa idaacadaha TV-yada daawan jiray dhageysan jiray ma dhageystaan sababtoo ah waxay arkeen warbaahinta Soomaaliya in aysan dhexdhexaad ahayn oo waxyaabaha kale oo kugu filan waxa kamid ah in wariyaashii oo xuriyatul qowlka inay u ololeeyaan dadku ay baraan la rabay in ayagiiba ay ku dhaxmilmeen siyaasiyiintii aad moodid wariyaha marka in uu sida siyaasiga oo kale u hadlaya soo social media isticmaalaya soo banaankii joogo waa maasanta waqtiga naga dhamaaday muxuu yahay marka xalku Cabdiqaadir Nadaar adan ku weydiinaya xalka ugu muhiimsan aniga waxay la tahay in la kordhiyo sida shirka London ba ka soo baxday hadeer tababarada la sii wariyaashu waxay u badan yihiin dad dhalinyaro inta badan aqoonta saxaafadda way ku yartahay waxaana yar iminka moogtahay tababaradoodii yar marka sida hadda shirka uu ahaaba waxaan aad u taageerayaa in tababarada loo badiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin dhamaantiin Cabdiqaadir iyo Farxiya Khalid waa idin mahad celinaya waqtigiina inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caawiya caalamka oo aad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno dhamaantiin waxaan leenahay habeen wanaagsan